kulanti waan saaxiibayaal meel kasta aad joogtaan baa kuna soo dhawaada sheeko cusub oo halkudhigeedu la yiraahdo gar jacayl ha la qaado. waxay ahayd goor aroor ah dadka magaalada joogaana qof kasta oo idaacadaha dhigta ku hayo waxa la dhageysanayay in wadooyinka la mari lahaa iyo sida xaalku u yahay. qof kasta markuu uu guriga ka baxay faataxa iyo dhowr jeer akhrinay qofka socdaana dhinacyadiisa ayuu mar walba fiirinayay sida nin dakana soo gala oo kale. gabdhuhuna sidoo kale talaabada ayaa hoosta laga wada boobayay. Faaduma waxa ay ka mid ahayd gabdhaha magaalada Muqdisho markaa joogo mar walbaana xaaladaha magaalada ka jira iswada weydiinayo. xaaladuna waxa ahayd mid bariga dhaxa ah. Faaduma waxa ku jiray arrin baa ku taagnay 18 jir sii jeed iyo soo jeedba qofka arkaa oo jeclaanaya ay ahayd. saantana si tartiib ah marka ay soconayso kii arkaaba uu jeclaysanayo inkastoo xaalado badan ay magaalada ka jireen. Faaduma aabaheed wuxuu ahaa nin ganacsada ah magacna kula magaalada maal fara badanna ku haysto. waxa ay mar walbaana ka fikiri jirtay Faaduma sidii ay aabaheed iyo wiilka ay jeceshahay ay u kala qarin lahayd. wiil yiraahdo Faysal ayaa ku dheeraa markastaana ay ka hadli jirtay aabahana wuxuu aad u jeclaa inuu markastaaba gabadhiisa ka dhaadhiciyo inay guursato wiilka walaalkii dhalay kaasoo uu aad ula doonayay. Faaduma saakaba odagii ayaa la hadlay oo sheegay arrinkii go'aanka ay ka qaadatay in kale ayadoo aad u yaaban banaankana fadhiso sheekaduna ay joogto tala waalid ma diidi karo jacaylkina way hayaa ayadoo halka maris ay bilowday inay isla hadasho ayada oo dhahaysa laba kala barida kala warla kii aan jeclaay ma soo gudbi karo oo dhagax baa ku gudban aabahayna midkan reer baadiyaha ula doonaya alla waxaan sameeyo ma garanayo wallaahi aabahay ima fahmayo midkan aan waxba fahmin oo reer baadiyaha ula doonaya noloshuna waa fahan kii aan jeclaana dhagax baa ku hor gudban ima soo talaabi karo ayadoo sheekadii sidaa isula calaacalayso warkiina oo halka marayo ayaa aabaheed oo degdegaya agteedii yimid. goortii ay aabaheed aragtay hadalkii ay joojisay odagii ayay kor u fiirisay misna way aamustay iyadoo waliba qamuuyoonayso dhoolla cadaynayso. odagina wuxuu u qaatay inay markaa hadalkiisii qaadatay. odagu waa uu degdegayo taleefannaa ku soo dhacay magaalada caadi maaha maanta xaalku caadi maaha baabuur baa qaacayo mid baa kala booday mid baa saa u sii socday. sheekadu sidaasay ahayd jidadkuna waa xiran yihiin baarlamaankii baa shirayo meel baabuurtu kuu soo martaa ma leh adduunyadii oo dhan baa saan isugu gadaaman si wax la yeela ma leh. asagoo taleefon ku qaylinayo ayuu gabadhii ag yimid gabadhii buu garabka ka taabtay kor bay u fiirisay markaasii mooday inuu la hadlay ayada oo dhahayso aabe waxaan ku yidhi aabo magaaladu horta ma fiicna haye waa la kala jeedjeedaa wax isjecelna uma jeedo haye wax isnacibna uma jeedo waxaan ku yidhi aabo naintaa yartaa inaad dhashaan rabaaye maxaad wiilkan adeerkaa dhalay aad ku nacaysaa naadha gabadhan aabo madax adayg baad bilowday haye na 18 sana lagu soo kulkulinayo sida ukuntii oo kale lagu dhowrayay ukunta inta gacanta lagu hayo intay weelka ku jirtay ammaanta mar haddii miiska jug lagu yara siiyo way isdaynaysaa namina isdaysaa rabtaa intaan anagu sii jeedno sugaabe dan ku qayliyana waa xanaan qawaalid ma lagu qayliyo aabaadi wax ma fahmaysid noo adiga aabo maxaa tiri wax ma fahmaysid aabo sidee wax kuugu sheegnaa annaga aniga inaan kuu duceeyaan rabaa aabo duco mar walbaan kugu leeyahaa aabo anima aniga kaa habaarsaday aabo wiilkan walaalka ah aabo bal intuu tagto horta la sheekayso waa wiil 20 jira dhuuc gaduud ah geeli siduu ula socday waa 20 jiraan weligiis gabar guursan way waa nin isaayo way gabadheedina isku feeraysan magaaladana kala tusto indhaad u noqoto mugdiga toosh la'aan lama soco karo adaan rabaa inaad toosh u noqoto ninka aabo wax reer baadiya geel ka soo ururayo ma raba anigu aabo mid kareemaysan baan aabo jecelahay maxaa kaa qaldan aabo saabuun lokis baa lagu dhaqo hadda waa fiican yahay aabe fahan biliis adigu sideen wax kuugu sheegay aabo maxaa kugu dhacay aabo naa waxaan ku yidhi baabuurtii baa iga cayiran oo degadi ka soo baxdo la liicliicaysa alaabtii ay waday baarlamaankana waa shiraya magaaladina qaac baa ka baxayo dadka waad u jeedtaa dhibaatada haysato xoolada meesha ay maraysa adigoo qiimaynayo midkan guri naadhari ninkii u dhow baa lafta kala baxee hagafin baan ku yidhi dhuuc gaduud magaalada hadduu baxo waa laysku dagaalaya ifaan aabo biliis ninkan dhagaxa kama qoslisiin kara aabo dayg lugihiisa siday u eg yihiin
aniga hooyadaa markaan guursanayay qosol iyo nagamaba dhaxinba sheekadu dhanba waxay ahayd wala laaliinay ahayd bes iyadana aamiinta un bay guraysa anna wala laaliin waa ku celcelinaya iyadana aamiintaasay haysa bixilliga xilli waa hadda xilli casri baa la marayaa maxaan ku daaray aabbo waalid baa isugu keen duceeyey anna waxaan rabaa inaan isugu keen duceeye ma fahamta aabba kaa dhagaxa ahaa igu duceyn ii ducee naa wax ma kuu sheegaa anigu 24 soo socota haddaan jawaab kaa waayo anigu walaayada waan wareejinaya waana kugu diray haddaad isquwaashana sariirta korkeedan kugu qufulayaas loo kugu safsaxaya ilaahay amarkiis waalid ducayaan waaru taagaya war maxaa samaynaa anaga aabbo bal xal baa imaanaya aabbo laakiin ka aniga ma doonaya aabbo ayadoo sidii isula hadlayso ayay hoos u degtay si ay markaasi bal keligeed meel gaar u fadhiisato saa waa kii la siiyoo dhegta loogu dhibciyey inuu gabadhan guursan doono kii baa ag yimid waana nin reebaadiye ah waa rabyaah waana ka jeedaa ayadana waad ka jeeddaa salaam buu ku bilaabay ayadoo sii jeed aabbaay xaarta adigane adeerkay wuxuu yidhi ma laguu sheegay haye gabarhtaan aan dhalaan ku siiyow yidhi ii warran bal beledkaanna waa u jeeddaa haye qofka maanta nool birri ma noolo su'aagaala fiiraade haye xabbadaa ku dhacday wiiftaa cuskatay waa kala jabyey waa la sii siday ambalaasyada yeeryeeraya waa maqle kan miga aamusiyo afkiisaan buka cabsaday aabbaydaa maahane hadal socodkaaba markaan arka aniga dham waa qamunyooha waxaan qof kale ha u gey ilaahay amarkiis asmaa i korsada dayba afkiis aniga warkayga waa cadyaha adeerkayna waa u sheego hayaan iri iye haddaa isiisa adeero waxaan iri waxaan geeyahaa iri tuuladii waxaan geeyahaa iri tuuladii aan ka imidan geeyahaa ee waa yeelan dajahaan tuulo ku dardartae wax badan loo soco maayo 7 bir iyo 7 cawo ina tareega u socaa dhagool miyaasi waxaan ka sheegay ma maqlooy miya geel 100 halaadana waa joogaa caanaha wax noo ruxaaya male eri badanna waa joogaa caanaha saa ruxe anna geelan ku ilaalaa mahana waaba ka tegaynaaba oo qaraxeeda iyo jugteeda iyo xabadaa lagu dhuftay iyo waa la dilada lagu hayo waaba ka guuraynaaba iyo baarlamaanaa shiraayo iyo wasiiraa jidka loo xiray iyo xaa ku galsha waxaas lugaha iska soo dhaqortaani markaa ila hadlaysid xaatir xabad ma ku dhiin waa ku salaamaan ku dhah sheekadii intaa markii ay maraysayay waxay isku dayday inay ka dhaadhicisay inay walaashiis tahay isagana ay ka heshay markaa in uu diido oo arrinka uu iska dhaafo mar kalaysa la hadashay iyadoo warka uu dejinayso adi dabaal maa tahayne ani adi walaalaaba nahana bee maxaa kugu dhacay adi aabbay warkaada qaboobahe aniga dham qabowgaaga ma ahan horta adi si fiican ila hadal horta adi dhagool maa tahay rani adi walaalaan nahay kow dheh marka caadada iska dhig magaalada waa lagu kala tustusaa reer magaala lagaa dhigaa yaa xabad kala kacsana oo saaxiibteena waa lagu bari doonaa marka magaalada la qabsaniyo aniga kala kacay waxa kala kacay xawaay yaadaa lagu kala kicina adaa qurux kaliya lagaa dhigaa lahjadaadi xitaa waa gashtay hadalkaa naga qaldin adiga eebba wax makuu sheegaa dhulka dhabdhaniyaho magaalada waa lagu baraa reer magaala lagaa dhigaa timaan hore iyo gadaal u dheer waa lagaa jaraa yaa timo burukaha lagu xiraa adiga dhanba magaalada lagu maceeyaha laakiin aniga iga gaabso aabbaay miraayada taanku iri waase kuu soo naqaa hadalkiioo intaasi marayo ayaa albaabkii waxaa soo garaacay wiil markaasi dhallinyaro ahaa oona socday guriga si uu markaas odagu ugu sheego in baabuurtii iyo jidkii weli ay isku qufulan yihiin meel la maraana haba yaraatee aysan jirin wiilkii baa albaabkii gabadhii ka furtay ayada oo markaasi weydiinayso ujeedka iyo ujeeddada uu u socday intaba waayo waa anigii xaajiga ma joogaa xaajige aabba ma joogaa haa aabba wuu baxay ma joogo xaggee u aaday marka magaaladuu aaday aabbe waayo adiga waxaad u sheegtaa aabba in magaaladii ay xidhan tahay raashinkiina meel la mariyo uusan lahayn oo magaaladii dhan waddooyinka ay xidhan yihiin marka taleefonkan ka soo wici doonaa bal uu sheeg in magaaladu dhan ay qab tahay maanta dhinaca kale magaalada waxaa ka socday sheeko kale la yidhaahdo kala orod wiil dhallinyaraha ordaayo mid kalea ka hor yimid hadal buu weydiiyey isagoo kii kale ku dhahayo warhay intee ordaysa saaxib jidkaa xihan maxaa ka dhacay jidadka xihan maxaa ka dhacay sheeg qaac baa baxaya qaac muxuu ka dhashay marka qaac baa baxaya oranaysaa qaac maxay tama dab baa dhacay inuu qaac baxaya bisaan u jeedaa laakiin wuxuu ka dhashay ma aqaan war dadku maxay u kala ordayaan dadkan waad u jeedaay maxay u kala ordayaan bal ii sheeg warniyo dadkan kala ordaya anigu ma garanayo iyagoo ordayaan arka dhinaceygana ka raacay sheekadu ayaa sidaa ahayd waana midda markaasi magaalada tiille ee ay dhallintu isu dhibdhibaysay dhinaca kale gabadhii faadumo ahayd saaxiibteed ayaa markaan guriga timid sheekada saaxiibteed haysato
ayay wax badan ka ogeyd waxa ayna laftirkeedu ay sidoo kale ogeyd inay Faadumo Faysal ay jeceshahay ayaduna ay Faysal ay rabto sidaas daraaddeed waxay mar walba isku dayeysay inay saaxiibteed ku qanciso wiilka adeerkeed dhalay oo aan magaalo iyo waxba ka aqoon inay asaga un haysato Faysalna ay faraha ka qaado waa nin reer magaal ah magaalada ku jiro gabdho badan ay isqaanaan waxa laga yaabaa kuwa kale inuu kugu korwado maxaa adiga kaliya kugu xayiray ma meel kale aad ka raasatid midkan diyaar kama iska guursatid waad ogtahay magaalada in maanta guur la'aan ay ka jirto gabdhihii dhamaa ay magaalada iska wada joogaan waqtiga ka faa'iideyso saaxiibteeda ku tiri ayadoo la hadlayso waayo saaxiib waa aniga waaw soo dhawow cadday ii waran seeta quruxee saaxiib fiican seeta adi aad baan u wacanahay maanta waa soo dheeraatee haa saaxiib ii waran adiga waa ladanahay soo dhawow saaxiib waan ku fiicanahay bal arrimahaagii ka waran aabbo wiilka uu kugu dari rabay intay marayaan nahee dhawaataa wax la socotee arrintu cirkay isku shararaysaa aabbahay wuxuu leeyahay duco ama habaar haye anigana waa ogtahay inaan dhanka xaajigayga u janjeero aan jecelahay haye marka saaxiibya tala keenba maxay igula talinaysaa saaxiib horta waalidka haddii uu duca iyo habaar ku yidhi ducada qaado oo wiilka adeerkaa dhalay iska guurso maxaad ku fadlaysaa Faysal waa nin reer magaala oo magaalada ku jiro waxaa laga yaabaa inuu naaga kale kugu dul wado laakiin wiilkan adeerkaa dhalay meelba ma yaqaano oo adigu unbuu kugu koobnaanayaa ilaahay amarkiisa tan saaxiib la isku mahalaya tan waaba ka shakisanahayba naa waxaas aniga ii aqrinine kanba wuu baran karaaye maxaa u diiday inuu barto uu magaaladii la qabsado saaxiib intuu magaalada la qabsanayo waa waqti adiga ayaa wax walba ka dhigi kara laakiin Faysal magaalada ayuu ku jiraa haddana ducada iyo habaarka ducada ayaa ku fiican adiga Faysal wuu jecel yahay anigana waan jecelahay indhaan asaga lahayna malihi sheekadu markay inta marayso ayaa korkoodii la soo istaagay waxaana lagu yiri intaasaan kusoo gabagabaynaa saaxiibayaal qaybtii koowaad ee sheekada halku dhigeedu ahayd gar jacayl ha la qaado intaaynu qaybta xigtaa aynu ku kulmayno waa dhammaanba asxaabtii reer iyo shabeellooda ku wada dhaafay sida ay nabadgelyo